neerka safiitadii markii la saarane insha Allah taala iyadana waa taas hadda la saarayo insha Allah taala waa taa la saarayo insha Allah taala waxaan ugu talagalnay ardayda wax kuleela inayna arag ayna meesha ku dhididin inayna qaanjeer ka soo bixin inayna urin ayaan rabnaa hadii Allah doono barnaamijku uu yahay itusiya itaabsi waxaan ku xirnaa jirnay nin la yiraahdo abaha oo nin sida Soomaalidu ay taqaan aniguna aan ku aqaan aamin ah halkii kugu hormarna ugu khayr badan maalkiina baxsada wax bari u baxsatiin awlaadiina baan Allah kini waalidiinta Allah idin gaarsiyo marka waxa isku xiran diintii iyo balankii waxa isku xiran iimaankii iyo amaanadii isku xiran bismillaah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillaah waxa mahadle oo in Allah lagu xamdiyo oo waajib ah in maanta si buuxda aan u bilawnay dhismihii madrasadii rabnay meel u qalanto kitaabka Ilaahay in lagu barto ayaan joognaa waxa halkaan hadda bilowday oo aad aragtaan oo si buuxda aan u bilawnay madrasadii dhismaheedii waxaan ugu mahad celinaynaa marka koowaad oo mahadda cidna ayna ka mudnayn kana horeynin Allahu Rabbul Alamin ba mahadda iska leh marka xigta waxaan u mahad celinaynaa bulshadii Soomaaliyeed ay muslimka ahayd ay dal iyo dibad ka soo gurmatay ay halkaan waalidiintoodii aabe iyo hooyo wax ugu daray naftooda wax ugu darsaday caruurtoodii wax ugu daray adduun iyo aakhira waxsan Allah bixiyay in Allah siiyo u niyooday soo gurmaday ayaan u mahad celinaynaa waxaa xalay hilmaamnay oo maanta soo baxay 60 laamiyeri oo midka kor la saara ah ay Soomaalidu ay taqaano oo bacyaraha loo yaqaano asagana waxaan loo sheegay $3.65 $3.65 iyo $4 baan nala tusay oo kala tayo badan $4 baan gelinay marka waxaan rabnaa laamiyeriga inta dhiman ee aan tilmaamnay ee lambarkaas ah ayaa noo u baahannahay iyo lacagtii $436 iyo mutuleelkii iyo rowgi waa hadii la heli karaayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiis ku leeyahay nin baa wuxuu iga soo wacay saakay holan sheekana dhaxmartay wuxuu igu yiri waxaan ku xirnaa jirnay nin la yiraahdo abaha oo nin sida Soomaalidu ay taqaan aniguna aan ku aqaan aamin ah umada u gurma jiray masaajida iyo madaarista dhisi jiray wuxuu igu yiri marka abaha tiimkiisan kamid ahay waxaana abaha ku dooranay wixiisu waxay ahaayeen buuri itusi ay taabsi shalay maadaama aad soo bandhigto wiri wax la arki karo oo la daawo karo waxaan rabaa in madrasada wax ku darsado lacag $300 u balan qaaday hadduu $300 noo soo diro $136 baa baaqi nagu noqonayso waxa aan soo bandhigaynana waxay naga tahay waa laba qodob dadkii wax la baxay goobtii ay wax ku bixiyeen inay ogaadaan waa koow qaybta labaad waxay tahay dadka shakiga la geliyay ee inay wax baxsadaan dhibaato u arko inay ogaadaan waxa ay baxsanayaan inaan meel wanaagsan aan ku bixinayno ee barnaamijku uu yahay itusiya itaabsi maxaa yeelay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la iimaana liman la amaanata lahu iimaan ma laha ruuxa aan wax amaano lahayn oo wixii loo dhiiba aan loogu iimaanaynin oo wixii loo wakiisho meeshay mudneed aan ka bixinaynin wax iimaana ma laha wala diina liman la ahda lahu ruuxa aan balan lahayn wax diina ma laha marka waxa isku xiran diintii iyo balankii waxa isku xiran iimaankii iyo amaanadii isku xiran باذن الله تبارك وتعالى waxaan rajayha oo aan kaftan iga ahayn xiriga dadka Allah Rabbul Alamin jecel ay aniga ay taageera ay wanaaga jecel ay jecel wanaaga aan ka shaqaynayno xiriga inaan leeladaynin $436 iyo
lambarka hadda bacweynaha bacyaraha aan sheegnay ay dhiman ay kor la saaraya insha allahu tacaala inaad ka qayb qaadataan haddii alla doono maxaa yeelay in wax la bixiyo allahu rabbulcaalamiin baana amray suuratu alxadiid wuxuu alla ku leeyahay aaminuu billaahi wa rasuulihi aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rumeeya wa anfiquu bixiya mimaa kii wax ka mida jacalakum rabbi nigaga dhigay mustakhlafiina fiihi kuwa ka wakiila allow kuwa wax bixiya ay waxay carruurtoodii iyo naftoodii ay meel u dhigeen hore maxay leeyihiin alla wuxuu leeyahay faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo minkum idinka niga mida oo wa anfaquu bixiyey maalkooda lahum waxay leeyihiin ajrun ajar ayay leeyihiin kabiir weyn adduun iyo aakhira san baa ilaahay ku siini ducadaadaa ilaahay aqbali goobtaan waxay ka mid tahay goobaha allahu rabbulcaalamiin uu jecel yahay waxay ka mid tahay goobaha diinta ilaahay lagu barto qur'aanka oo la qiimeeyana waxay ka dhigan tahay ilaahay oo la qiimeeyo maxaa yeelay mathal baan nii keenaynaa malagii allahu rabbulcaalamiin oo u wakiishay malaa'igta inuu ambiyada u geeyo waxyiga malaa'igta asagaa ugu sareeya waa sayidulmalaa'ik malaa'igta asagaa ugu sareeya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qur'aanka la siiyey rusushoo dhan wuu ka fadli badan yahay maxaa yeelay rusushii nebiga sal alayh wasalam ka horaysay mucjizooyin baa la sii jiray laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam alla qur'aankuu siiyey waxaa ka mida labadii magaalo oo qur'aanku ku degay dunida way ka fadli badan yihiin maka iyo madiina qur'aanku way ka fadli badan yihiin bishii oo qur'aankas bilaawday oo alla uu doortay inuu bilaawo qur'aanka soo degistiisane bilaha way ka fadli badan tahay innaa anzalnaahu fii laylati alqadri tobanka dambe ay bisha ramadaan way ka fadli badan tahay bilaha kale labaatanka bisha ramadaanna way ka fadli badan tahay sagaalka maalmood ama tobanka maalmood ee bisha ramadaan baa waxay ka fadli badan tahay labaatanka bisha ramadaan sidaa darteed marka ruuxa qur'aanka bartana dadka wuu ka fadli badan yahay ay ku camal falaa ay u barta lafdan wa macnan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa kaloo fadli badan dadka u khidmeeya diinta ilaahay carruurta agoonta inaad kafaalo qaato waxaana ka mida alinfaaq calaa daalibi alcilmi wa kafaalatuhu sababun lisacati alrisqi qofka daalibulcilmiga in la kafaalo qaado oo wax lagu bixiyo waxay ka mid tahay asbaabda alla uu irsiqa ku waasiciyo xoolaha ilaahay oo ku fidiyo marka waxaan rajaynaynaa ruuxii carruur doonaya ee carruurtii ka soo daahday ruuxii xanuunsan inuu wax la baxo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama daawuu mardaakum bisadaqa kiina xanuunsan waxaad kula tacaashaan sadaqo marka insha allahu tacaala qaybtaa dambe oo hadda aan tusi doonno waxaan ugu talagalnay suulidii ardayda iyo mucallimka iyo macallimiintu ay isticmaali lahaayeen haddii alla doono waa qaybtan dambe waafiga ee ah 7 mitir iyo 7 mitirne waxaan ugu talagalnay ardayda oo si waafiya loo dhisi doono haddii alla doono qaybtan koro insha allahu tacaala injineerkina wuu joogaa dhowaan waxaa bilaawanaya hadda waa bacweynihii qaybta hoose la saarayo qaybtaana waxaa la saarayaa qaybta koro bacyarihiyaa la saarayaa bacyaraha markii la saarana waxaa lagu xujinayaa sidoo noo tilmaamay injineerka safiitadii markii la saarane insha allahu tacaala iyadana waa taas hadda la saarayo insha allahu tacaala waa taa la saarayo insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay ardayda wax kuleela inayna arag ayna meesha ku dhididin inayna qaanjeer ka soo bixin inayna urin ayaan rabnaa haddii alla doonay allahu rabbulcaalamiin baan ugu dhowaanaynaa waxaa haray marka shamiidadii inay bilaawato haddii alla doono waa dayaysin maaragtay fidistii weli lama gaarin
cara turki iyo wixii dhiman caradii banaanka inoo taalaa marka ulijeedku wuxuu yahay meeshaan sida aan jecelnahay arbacada meel aad u qurux badan oo dadkii wax ku darsaday ay ku farxi doonaan ayaa rabnaa halkan inaan ka soo saarno haddii alla doono waana sadaqa jaariye ah sadaqa jaariya ruuxii u baahnaay masjid geliya ayaa la isku qufulin soomaalidu wax ma akhriso masaajidu way bateen midka rukuucay iyo midka sujuuday la kalama yaqaan way isa saaran yihiin asmaada qiyaamahana waxa ka mid ah oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay oo muslim ku taalo iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo musnad axmed masaajidu inay badanayaan inna min ashraadi الsaacati an yatabaaha annaasu fi lmasaajidi asmaada qiyaamaha waxaa ka mida dadku inay iskugu faanaan dhismaha masaajida marka dadku waxay isku qufulayn oo aniga naftigayga xataa laygu yidhi dad halkan wax ku darsaday sheekh shantaayo waxaan ka jeclaa lahaynay inay masjid tahay meeshaan qur-aankaa lagu baranaya masaajidka maxaa loo dhisaa sheekh ma garanaynaa masjidka waxaa loo dhisaa keliya in waajib lagu guto in ilaahay lagu xuso in diinta ilaahay lagu barto halkaana kitaabka ilaahay baa lagu bartaa ruuxa waa meesha lagu diyaariyo waa meesha wax lagu diyaariyo culummada soomaaliya ugu waaweyn maanta intay wax intay ka bilaabeen dugsigay ka bilaabeen sheekh maxamed cabdi umul dugsiguu ka bilaaway ninka la yidhaahdo ii sheeg doctor aadan dugsiguu ka bilaaway sheekh maxamed idriis dugsiguu ka bilaaway maaragtay sheekh cabdixayi dugsiguu ka bilaaway sheekh maxamed macalin abshir dugsiguu ka bilaaway dugsigu marka waa bulsho muslima oo nadiifa meeshay ka soo baxaysay waa meesha caqliga ruuxa bini aadamka lagu dhiso marka insha allahu tacaala waa meesha la rabo in dhallinyarada lagu diyaariyo wiilal iyo gabdho marka waxaan rabnaa lambarkaas ee bacyaraha oo aan hilmaamnay ay soo baxay inaad inta dhiman insha allahu tacaala aad bixiso insha allahu tacaala lacagta $436 wixii kaaga aadanna aad soo dedejiso waxaan rabnaa madrasadan sheekh shantaay insha allahu tacaala ilaahay uguma ceebay doono injineer soo dhow dadka hal kelima dheh alxamdulilah ilaah baa mahadnaq iska leh bacdeen wadaadkan maanta aad iyo aad xaafadda noogu gurmaday xaafadaan deganahay injineerka xaafadaan ka mid ahay dugsigan maanta waa burbursanaa dhulkuu yaalay maanta dugsi maasha allah uu noqday xaafadda ku faraxsan intii wax la baahday ajar sanaad allah ka siiyo dadka inay kusoo daydaan loo baahan yahay inay diintan adduunyadan waa laga tagaa khayrul maali maanta qadama nabi alayhi salaam sharul maali maanta akhira maalkii kugu hormarna ugu khayr badan maalkiina baxsada wax bari u baxsatiin awlaadiina baar allah kini waalidiinta allah idin gaarsiiyo dadaalka wadin allah sheekh warkiisa hala yeela hala ayido wixii noo dhiman baqayaa noo soo dhameystira insha allah adduunya aakhira taam allah idin ka dhiga sadaqadiina ilaah idin aqbalo anigana xoog inoo kastaan oo gelino haynaa ijtihaadan ku sameeyo haynaa meel walba mataqaana sheekh naga wacna waa tago haynaa madrasa lagu dugsi lagu quraan lagu baranayo waa dhiso haynaa waa kas meel walba idinka nala shaqeey anigana garabkiina taagna oo bilaay tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku su'aalayaa maadaama anigu kugu kalsoon aad iyo aad cadaadiska aan ku saaro waxa ka mid ah meeshaan madraso qurux badan aad iyo aad aqoonteydii inaad leedahay maasha allah dadka madaarista dhiso guryaha halkan xamar jajab amba loo yaqaan meeshaan ansaloti inaad wax ka dhisto aad iyo aad lagu yaqaan marka waxaan rabnaa madraso qurux badan oo dhismaheedu siman yahay maasha allah taasaan oo ballan qaaday ballan aan qaaday taas hadduu ilaahay yiraa hadda noocaad ku arkooysin wejiga labaad la duubi doono inaa weji kale oo qurux badan ku qanacdin inaan ka dhigno haddii ilahay yiraa in ballan qaada aad oo maasan tahay assalaamu calaykum dadka wax la baxay aad iyo aad goob qurux badan inaan xoolahooda u gelino maasha allah waa ballan ilaahay ka qaada insha allah waxaan rabnaa inaan ii tilmaamno xarartan madrasadoo dhan tirarka u ah oo wax walba hayso gabar muslimada hay Soomaaliyeed ee shukri la yiraahdo ayaa noogu deeqday North America ku nool waxaan shukri u weydiinaynaa adduun iyo aakhiro waxsan inuu Allah siiyo muraad ay niyada ku haysaa muraadkeedii oo sahlanna inuu Allah siiyo asxaabtayda iyo dadka muslimiinta laamiyerigi bacyaraha ay hilmaamnay waa kan oo aan maanta soo qaadnay qandalka xaaji daahir cali ayaan ka soo qaadnay insha allahu tacaala waa bacyarihii kor laga saarayey oo safiitada ka hooseeyey insha allahu tacaala halkaana waa ciidii oo aad arkaysiin oo laba nuuca insha allahu tacaala waa nii mahad celinaynaa waxaan ii leenahay sadaqadii aad la baxdeenne allahu rabbulcaalamiin adduunka iyo aakhiro waxsan allah niigu siiyo bushi iyo baahi allah nii garab mariyo maalinka qiyaamane hooskii aad harsan lahaydeen allah nigaga dhigo
waxaan sugayna waxay keliya bacyarihii oo dhiman iyo $1,436 laba adoon amba hal adoon oo naga bixiso madrasadana insha Allah taala kitaabka Ilaahay baa lagu baranayaa cid iyo shakhsiyaadna looma bari doono. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.